kadib howlgallo maalmihii ugu dambeysay ay si wada jir u sameynayeen ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka Jubbaland kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan Jubbaland oo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayna ka wadeen deegaanada Beerxani Kanjaroon Araare iyo Jamacme ayaa lagu sheegay in ciidamadaasi iskaashanayo ay waxyeello u geysteen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayna ka dileen ugu yaraan 38 askari oo ka tirsan ciidamada ururka Al-Shabaab sida uu ku xaqiijiyay shir jaraa'id oo qabtay wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo subaxnimadii hore ee saaka la hadlay warbaahinta waxa socday howlgallo ay wadeen ciidamada geesiyaasha ee dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan qaybta daraawiishta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta halkan ka degan oo kaashanaya ciidamada kale ee saaxiibada aan nahay ee naftooda AMISOM howlgalkaas oo ka dhacay dhowr goobood oo kala ah Beerxano, Jamaamo, Kanjaroon iyo Araaro oo runtii intaba guulo wanaagsan laga soo gaaray runtii 40 saac ugu dambeysay ciidamada howlgalka ay sameeyeen Ilaahay waa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala waxay gaareen guulo la taaban karo Beerxano oo kale ciidamadoodu way galeen waxa ku dhintay oo halkaas ayada ah oo baxay runtii saaxada ilaa 33 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ilaa 33 askari oo ah maleeshiyaadka Al-Shabaab oo runtii dhawr qabayaal ah oo shacabka Soomaaliyeed dhibaato gaar ah ku hayay sidoo kale Kanjaroon oo kale laba ayaa iyadana ku geeriyootay mid ah maleeshiyaadka Shabaab Jamaamo ayadoo ka baxeen way carareen ciidankeygana waxa uma gaarin ay kan hadda wax la gaarsiiyay ma aysan jirin laakiin oo maysan sugin in wax la gaarsiiyo waxaan howlgalkaas noomad sii socon doona biidnaahi tacaala oo goob walbo ciidamadu ay joogaan oo dowlad goboleedka Jubbaland ay ka fulin doonaan haddii alla idmo oo ay ku raadsan doonaan dhowr qabayaasha meel kasta ay joogaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ku sugan inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo saaxiibada ay kaashanayaan oo runtii waxa ay raadinayaan ay tahay horumarkooda iyo amnigooda soo celintooda iyo inay ka dulqaadaan khawaarijta argagixisada ah oo dhiig qabayaasha ah oo dhagar qabayaasha ah oo siinbari naftooda iyo maalkooda banaystay oo hantidooda xoog ku qaadanayo inay la shaqeeyaan ciidamadaas si ay u helaan istiqraar iyo kala dambeyn iyo amni iyo nabad Maxamed Qaasim Ali Waxar